waftiga uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa bahdil iyo hadallo duur xul ah kala kulmay xildhibaanka Koongareyska ugu jira Soomaalida ee Ilhaan Cumar iyadoo barteeda Twitter-ka ku daabacday weera ay ku weerarayso kulankii dhexmaray waftiga Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guddiga arrimaha dibadda ee aqalka Koongareyska Mareykanka. hadalladan ay Twitter-keeda ku daabacday xildhibaan Ilhaan Cumar oo jees iyo weerar toosi uu ka muuqday ayaa waxay Soomaalidu baraha bulshada ku faaleynaysay saacadihii la soo dhaafay waxaana si weyn ugu mashquulsanaa dadka reer Somaliland oo kamid ahaa dadkii u codeeyay xildhibaan Ilhaan Cumar. xildhibaanadan oo ahayd mid ay Soomaalidu wada dooratay ayaa waxa ay tiri marka aanad fahmi karin waftiga kula jooga oo aad iska dhigdhigayso in maqalkaagu xun yahay oo ay uga jeedo inay iska dhigatiraysay hadalka iyo weeraha ay isdhaafsanayeen guddida arrimaha dibadda iyo waftiga uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo aad ku dadaalayso bay tiri xildhibaan Ilhaan Cumar inaad isxakamayso oo aanad kantaroolka lumin maadaama ay tahay xildhibaan la wada doortay hadalladeeda oo kor u sii qaadaya cadaawadda iyo xumaanta u dhaxaysa reer Somaliland iyo dadka reer Soomaaliya. hase ahaatee waxay jawaab degdeg ka heshay muwaadin u dhashay waddanka Mareykanka oo lagu magacaabo Ron Golter kaasi oo ka hadlay siraha uu ka hayay iyo ceebaha u qarsoon xildhibaanadan Koongareyska Mareykanka ku jirta ee Soomaalida. hadallada Ilhaan Cumar ayaa sida ay uga jeeday iyo sida loo fahmi karaa ay kala duwanaan karaan waxaana ay dadka reer Somaliland markiiba u qaateen nacayb iyo xumaan maadaama ay ka soo jeedo Soomaaliya oo aad indhaha ugu haysa tallaabooyinka horumarka ah ee ay qaadayso Jamhuuriyadda Somaliland. hadalkan ayaa dabka ku sii shidaya ligdanka u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya oo ku aadan dhinaca madax bannaanida iyo dawladnimada. inkasta oo siyaasadda lagu kala duwan yahay labada shacab ayaa ah kuwa isku mid ah oo aan marnaba kala fogaan karin waxaana u fiican dadka mustaqbalka iyo aragtida fog siyaasadda kale inaanay ku dhex milmin dagaalka iyo halganka u dhaxeeya labadan dhinac.